iyadoo howlgallo lagu baacsanayo haraadiga arxanka daran ee al-shabaab ay ka soconayaan deegaanada farakutiriska ay ku dhibaatay jireen dadka shacabka iyaguna ay ku dhuuman jireen ayaa ururka afraad guutada 16aad kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab iyo ururka 64aad guutada 7aad qaybta 12 Abriil ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay sameeyeen howlgal wada jira oo lagu burburinayay fariisimaha argagixisada ee deegaano hoostaga degmooyinka Balcad iyo Afkooye oo ka kala tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. deegaanadan oo howlgalku ka dhacay ayaa kala ahaa Basra, Baldooska, Jambaluul, Cadadheere, Gaalgubo, Alifow iyo Baqdaad oo dhammaantood ka kala tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Argagixisada ayaa deegaanadan ku lahayd goobo kala duwan oo kala ahaa maxkamad beenaadyo ay ku dhacaan dadka shacabka, isbitaallo ay ku daweeyaan kuwooda dhaawacmay iyo goobo kala duwan oo ay gabaad ka dhigtaan maadaama deegaanadani ay ku yaalaan jiinka webiga Shabeelle isla markaana ay ku yaalaan beero waaweyn oo uu ka soo go'o dalagyo kala duwan. waxayna al-shabaab islahaayeen waxa ka dhigan kartaan gabaad balse waxa ka biyadiiday kana dhigay go'aankii al-shabaab hal bacaad lagu lisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo burburiyay gabi ahaanba fariisimahoodii. markaad la kulanto shacabka ku dhaqan deegaanadan ayaa waxaa dareemaysaa inay ku hayeen culays weyn al-shabaab maadaama kooxdaasi shacabka u geystaan falal guracan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa jiif iyo joog u diiday horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab kadib markii guud ahaan dalka uu ka bilowday howlgallo lagu baacsanayo firxadka haraadiga al-shabaab. Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan, warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, deegaanada xiriiriya gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe.